markaas ayuu Tuqrul Baghdad afka saaray oo duulaan degdeg ah ku qaaday meesha Marwa la yiraahdo ayuuna xarun ka dhigtay sanadkii 428 ee Hijriyada. markii dambe Salaajiqadii iyaguna waa ay ku kaceen amarkiisana waa ay diideen. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salaajiqadu waxay ka soo jeedaan qabiil la oran jiray Kinik, meeshaas oo ka soo hayaantay bariga Aasiya oo ah meesha ay asal ahaan Turkiga ka soo jeedaan oo Shiinaha ku dhagan, iyagoo ahaa reer guuraa kadib markii biyihii iyo baadkii ay ku yaraadeen ayay afka soo saareen dhinaca galbeed iyagoo raadinaya deegaan ay ku noolaadaan oo maamul iyo dawlad ka dhistaan. waxayna soo galeen hayaan dheer iyagoo gaala ah bartamaha qarnigii 6aad ee miilaadiga, waxayna ka daba yimaadeen beelo kale oo Turki ahaa oo iyaguna qarniyo hore isku ballaadhiyay meelo badan oo kamid ah bartamaha iyo galbeedka qaaradda Aasiya. beeshu waxay soo sahansatay oo geed u ahayd dhulka Anatolia ama Aasiyada yar la yiraahdo oo ah halka maanta ay ku taalo dawladda Turkigu, waxayna ku hakadeen oo in muddo ah joogeen dhulka Georgia iyo Tabristan, waxayna halkaasi ugu tageen boqor Turki ah oo maamul ku haysta oo la oran jiray Biqo. markaas la shaqeeyeen oo ciidan u noqdeen, waxaana kamid ahaa nin la oran jiray Saljuq bin Taqaq oo sargaal sare noqday gaarina darajada Subaashi ama taliye ciidan, wuxuuna ahaa nin hogaamiye ah oo beesha oo dhan ay ka dambayso. ciidankii Turkiga oo dhan isaga taliye u noqday oo hogaaminayay. markaasuu boqorkii lafiisa iyo xukunkiisiiba uga baqay, markaasuu boqorkii go'aansaday inuu shirqool ku dilo. Saljuq markii uu sirtaasi helay ayuu amar ku siiyay beeshiisii inay ka guurto dhulkaasi uu boqor ka taliyo, waxayna degeen magaalo la yiraahdo Khajinda oo webiga Jayxoon u dhow, halkaas oo diinta islaamku ay gaadhay oo muslimiintii ay deganaayeen. markaasuu islaamay oo beeshiisii oo dhan diinta islaamka ugu yeedhay ayna qaateen. markaasuu wuxuu dagaal ku qaaday cawaankii Turkiga oo deganaa dhulka Turkistan oo halka ay asal ahaan ka yimaadeen. bilowgii qarnigii 5aad ee Hijriyada Salaajiqadu waa ay gaamureen, waxayna noqdeen dawlad xoog leh. awoodii Salaajiqada ee isa soo taraysay waxay walwal ku abuurtay suldaankii Ghazniyinta Maxamuud oo isagu ka talinayay inta u dhaxaysa Hindiya iyo Faris oo halka ay maanta Iiraan ku taalo. markaasuu madaxdii Salaajiqada soo qabtay oo xabsiga wada dhigay sanadkii 415 ee Hijriga, isaga oo 4 sano ku xukumay, waxaana ku dhintay xabsiga dhexdiisa Arsalan Biqo oo hogaankooda sare ahaa. suldaankaasi dagaal iyo culaadin ayuu u muujiyay Salaajiqada. markii dambe Salaajiqadii iyaguna waa ay ku kaceen amarkiisana waa ay diideen iyagoo dagaal la galay Suldaan Maxamuud. markaasaa iyagii la jebiyey waana isaga guureen dhulkii uu ka talinayay. kamawna hadhina wuxuu ka daba diray sargaal la dagaalama oo meeshay tagaanba ka daba taga, isagoo aan weli Salaajiqada dagaalkooda soo afjarin baa tii Alla u timiday oo uu geeriyooday Suldaan Maxamuud sanadkii 421 ee Hijriyada. dabeed wiilkiisa Mascuud oo xilka uga hadhay ayaa heshiis la galay oo xanaftii qaboojiyay, isagoo doonayay inta uu xukunka ka buuxsanayo inuu iskala heshiiyo. haddaba markii uu tagay kacdoon Hindiya laga soo horjeeday ayay Salaajiqadii ciilka u qabtay ka faa'iideysteen, dagaalna ku bilaabeen. waayihii hore oo dhan maamulka Salaajiqadu wuxuu iska ahaa hab jabhad oo kale ee ma ahan dawlad habaysan. waxaa hab dawladnimo u aasaasay suldaankii la oran jiray Tuqrul bin Mikhail. dagaalo badan oo isreebreeb ah buna la galay Turkida kale oo qaar Salaajiqada kamid ahaayeen oo awoodooda ku qabsaday, waxaana kamid ahaa Ghazniyinta oo meeshii uu tagaba kaga daba tegayay oo ka hadhi waayay. laakiin markii dambe Alla ayaa u jabiyay oo Ghazniyintii waa uu soo jabiyay oo wuxuu xoog ku qabsaday gobolka Khuraasaan. meesha Marwa la yiraahdo ayuuna xarun ka dhigtay sanadkii 428 ee Hijriyada. Suldaan Mascuud bin Suldaan Maxamuud wuu ka hadhi waayay Salaajiqada isaga oo goostay inuu dagaalkooda soo afjaro, wuxuuna soo saaray ciidamo diigaanyo ah, waxaana ku dhex maray goob la oran jiray Daandaqaan dagaal khadhaadh oo lagu kala hadhay sanadkii 429 kaasi oo si fool xun loogu jabiyay ciidankii gardarrada ku socday ee Ghazniyinta. halkaasina guushu ku raacday ciidankii Salaajiqada, waxaana halkaasi ka bilaabmay curashadii dawladdii Salaajiqada. dawladdii Ghazniyintana waxaa u bilowday hoobasho iyo dhicid. sanadkaasi baan la yiraahdaa waa gugii la aasaasay dawladdii Salaajiqada. haddaba markii ay jabiyeen oo ay ogaadeen inayna mar dambe soo hawaysan karin ayaa waxay dagaal ku bilaabeen buuyihiintii dhulka Faris iyo Ciraaq isku ballaadhinayay ee dawladdii dhexe Islaamka xooga ku haysatay, iyagoo diinta ay haystaan aan la garanaynin oo Shiico Raafidaa taageerayay. sanadadii 431 iyo 432 waxay ku jireen ishabayn iyo abaabul.
sanadkii 433 ayay dib u bilaabeen duulaamo ay awoodooda ku ballaadhinayaan waxayna isku fidiyeen dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed waxay markii koowaad gacanta ku dhigeen gobolada Tabristan iyo Georgia dabadeed waxay afka saareen sanadkii 434 gobolka Khwarizm oo bariga fog ku yaalay intay go'doomiyeen ayay markii dambe gacanta ku dhigeen waxay gacanta ku dhigeen oo kale gobolada Tibsi iyo Makran waxay ku sii xigsiiyeen qaybo kamid ah gobolada Karman iyo Ray isla sanadkaasi ay haddana gacanta ku soo dhigeen gobolka Hamadan dabadeedna waqooyi bay ku sii xigsiiyeen waxayna gacanta ku soo dhigeen gobolka Tahsitaan dabadeedna intuu soo laabtay buu gudoomiyayaal u magacaabay Tabristan iyo Hamadan wuxuu maagay inuu Karman oo dhan la soo wareego laakiin waa la iska soo waabiyay oo waa la soo jabiyay markaasuu Sultaan Tuqrul duulaanadii hakad galiyay sanadkii 436 ee Hijriyada ayay buuwahiintii dagaal rogaal celis ah dib soo qaadeen oo ay Hamadan la wareegeen sanadkii xigay 437 ayuu Tuqrul diray ciidan uu hogaaminayo abaanduule la oran jiray Ibrahim bin Yanaal oo soo furtay mar kale magaalada Hamadan dabadeedna ku duulay gobolka Buurleyda oo hadda ku yaala galbeedka Ciraaq iyo Iiraan waa meel alla wax ka wada ee sanadkaasi wuxuu alla ku tuuray fardii buuhiinta cudur kaasoo ay tarabtara u dhinteen waxayna waayeen ilaa 12,000 oo faras magaalada Baghdad iyo agagaarkeeda urti iyo baktigii fardahaasi ayaa wadooyin kale la mari kari waayay halkaasina gaadiid ay ku dagaalamaan ayay ku waayeen wixii ay eedagaleen baana ku soo baxay markaasuu Tuqrul guga xigay bilaabay duulaanadiisii isaga la fahantiisa ayaana hogaaminayay ciidamada sidii caadadu ahayd waayihii hore oo dhan wuxuu gabagabeeyay Isbihaan laakiin ku guuleysan waayay inuu si toos ah ula wareego amiirkii ka talinayay ayuuna kula heshiiyay inuu cashuur siiyo isla markaasina manaabirta masaajidada looga duceeyo wuuna iskaga laabtay halkaas waxa ka talinayay mid kamid ah amiiradii buuhiinta sanadkii 446 wuxuu gacanta ku dhigay Azerbaijan dabadeedna sanadkii xigay ayuu go'aansaday inuu Ciraaq afka saaro oo buuhiinta Baghdad ka xoreeyo isaga iyo khaliifada Cabbaasiyiinta xiriir hoose oo qarsoodi ayaa ka dhaxeeyay kaasi oo soo bilaabmay sanadkii 433 ee Hijriyada iyadoo khaliifadu aqoonsaday dawladda Salaajiqada oo xurmo weyn iyo qadarinba u hayay buuhiinta iyaga talada isku qabsaday wixii ka dambeeyay dhamaadkii qarnigii afraad awooddooduna hoos ba u sii socotay waxaana dhexdooda ka bilaabmay dagaalo isreebreeb ah oo dawladda Salaajiqada danteeda ahayd waxayna sugtay inta ay ka jilcayaan sanadkii 447 waxaa talada buuhiinta la wareegay nin aan arxan lahayn oo xoog badan oo la oran jiray Arsalan Basaasiri kaasi oo ku tashaday inuu khaliifada magaca ahayd gabigeedaba joojiyo oo tirtiro markaasuu khaliifkii xilka hayay oo la oran jiray Al-Qaa'im bi amrillah wuxuu u habar wacday sultaankii Salaajiqada wuxuuna ka codsaday inuu degdeg u soo gaadho isagoo u sheegay inuu halis ku jiro markaas ayuu Tuqrul Baghdad afka saaray oo duulaan degdeg ah ku qaaday intuuna Baghdad galin 3 maalmood ka hor ayuuna khaliifkii amar ku bixiyay in Tuqrul masaajidada looga duceeyo wuxuuna magaalada Baghdad galay bishii Ramadaan sanadkii 447 ee Hijriyada markaasay magaaladii ka yaaceen madaxdii ka talinisay kuwaas oo kala ahaa Arsalan Basaasiri oo kor ka haystay iyo Sultaan Rahiim oo u dambeeyay salaadiintii buuhiinta Sultaan Rahiim isaga waa la soo qabtay waxaana lagu xidhay qalcad Ciraaq ku taalay halkaas ayuuna isaga dhintay 3 sano kadib